Ukunta mise doorada yaa soo hormaray? Waa su'aal caad caan u ah oo qarniyo badan dadka soo jahwareerisay, balse maanta isla ogaana jawaabta. Marka hore su'aashan taariikhiyan keliya ma ahayn su'aal, waxay tusaale u ahayd in arrimaha qaar aysan caddayn midka ah sababta iyo midka ah natiijada, taas oo dhalinaysa wax loo yaqaano circular logic. Ayadoo xitaa filosoofyada waaweyn sida Aristotle uu ku dooday in dhacdadan aysan lahayn wax asal ah, sababtoo ah si uu mid u dhaco wuxuu u baahan yahay mid kale, waana loop soo laalaabanaya aan dhammaad lahayn. Balse qarniyaal badan kadib, sayniska ayaa dhahay maya, jawaab na siiyey, haddaba aan isla fiirino. Marka hore haddii aan ku bilaabno ukumaha guud ahaan, sida la ogsoon yahay waxaa jira xayawaano badan oo dhigaya ukumo ka hor xitaa jiritaanka shimbiraha iyo doorooyinka. Sida kalluunka oo isagu ku dhawaad 500 milyan sano dhigaya ukumo, laakiin ah kuwo aan xuub lahayn. Ayadoo ukunta xuubka leh ay taariikhda gadaal ugu laabanayso ku dhawaad 300 milyan sano, sidaa daraaddeed waxaa soo horreeyay ukunta. Laakiin su'aashan la kuma eka, ka waran ukunta doorada gaar ahaan. Doorada aan aqaanay ee guri-joogta ah waxay markii ugu horreysay Koonfur Bari Aasiya kasoo muuqatay 3 ilaa 10 sano ka hor, waxayna kasoo faracsameen 2 shimbir oo ah awoowayaasha doorooyinka. Labada shimbir wax badan kama duwaneyn doorooyinka, laakiin ma ahayn dooro. Marka ukuntii ay dhaleen waxaa ku dhacay isbeddel DNA ama hidde-side, markaasna waxaa ka dillaacay doorada aan maanta naqaano. Sidaa daraaddeed, sidoo kale ukunta doorada iyo doorada waxaa horreeyay ukunta. Waxaan rajeynayaa inaan wax uga fahnay. Haddii aad jeceshahay inaan la saameeyo xogahan oo kale, kaala nagu soo biir.